bismillaah waxaan wanaagsan daawadayaal hantii meel boodin ka joogtaan waan in salaam ku soo dhawaada Boseeke Movies walaal hadaan noo sabta fadlan janaalka subscribe noo sar hada hor noo joogto fadlan like inoo sar muuqaalka asxaabtaada noo sii share gareey maanta waxaan doonayaa inaan sharax film Kuuriyada Koonfureed oo loo yaqaano Champion sheekadu waxay ku bilaabaysay dagaal gacanta laacibku ah oo Kuuriyada la oran jiray Mark hadda wuxuu ka shaqeeyaa kalaab ku yaal Ameerikada fiidnimadii asoo shaqada ku jira waxa uu imaaday saaxiibkiisa hore ee Kim kaasoo ku booriyay inuu ka qayb galo tartanka gacanta lagdan Mark ma xiiseynayo laakiin Kim ma quusan ilaa aakhirkii uu ku qanciyo waxay aadeen dhinaca kale ee kalaabka dadka joogan waxay ku raaxaysteen sharadka ciyaarka ninkii Mark uu la tartamay wuuna ka guuleystay haweenkii oo dhan saameyntii Mark waxay hoos u dhigtay ninkii kale qofna ma rabin inuu sharad la galo asiga oo kale taasoo u soo baxday in faa'iido u tahay Kim ciyaartii ayaa bilaabatay Mark wuxuu cadeeyay sababta uu ahaan jiray ninku xirfad badan lagdinta gacanta ninkii ka soo horjeeday dhidid badan ayaa ka soo baxay laakiin ma dhaqaajin gacanta wax yar xitaa asigoo aan isku dayn xitaa wax yar Mark ayaa ku guuleystay ciyaartii kaasoo tiimka dhigaysa baaldi lacag ka buuxday inuu qaato Mark ayaa ciyaartii ku guuleystay taasoo Kim ka dhigaysa baaldi lacag oo ka buuxday inuu qaato isku dhac ayaa ka imaaday ciyaartii kadib ninkii guul dareystay ayaa diiday inuu aqbalo guul daradii wuxuu fiiray Kim kaasoo ugu dambeyntii sababay dagaal u dhaxeeya Mark iyo macaamiil fara badan sababtoo ah dagaalka dartiisii toddobaad kadib wuxuu helay shaqo kale oo waardiye ah kaasoo ilaalinaya dukaanka cuntada wuxuu sameystay nolol wanaagsan oo ku qanacsan yahay noloshiisii markii laga reebo mararka qaar wuxuu u xiisay gurigiisii maalmo kadib waxaa soo wacay Kim asigoo ka codsanaya inuu yimaado Kuuriyada waxaa saawil ka bilaabay tartankii lagdinta ee gacanta kaasoo cidii ku guuleysatay u tartami doonta heer caalami Mark wuxuu eegay biladiisii hore muddo dheer kadib asigoo go'aansaday inuu galo qatarta ugu weyn noloshiisa markuu ka tagay magaalada Saul Kim wuxuu u yimid inuu soo qaado maqaayad ay aadeen waxayna ka sheekaysteen meherada cuntada Kim wuxuu rabay inuu noqdo wakiilka Mark iyo taxadirka dhinaca ganacsiga xirfadiisa laakiin wuxuu rajeynayay inuu galo ganacsiga sharadka si uu lacag badan ugu sameeyo taasi awgeed wuxuu ka faa'iideystay xirfadii Mark labada qof ayaa socod ku tagay Saul mid kamid ah meelaha la tago gabdhaha waxay ku qaldeen Mark inuu yahay goob dalxiis ee sawir la galin kadib markii uu ku noolaa Ameerika sanado badan luqadda Kuuriyada ee Mark waa jajab taasoo horseedaysa inuu wada hadal badan oo qalafsan sameeyo habeenkii waxay aadeen kalaab laakiin Mark wuxuu u taagan yahay geeskii habeenkii oo dhan wuxuu u qaatay inuu yahay waardiyaha kalaab markii uu sii socdeen hoteelkii Kim wuxuu weydiiyay haddii uu weligiis u rabay inuu ogaado halkay ku sugan tahay hooyadii dhashay waxaa soo baxday yarantiis in loo dhiibo qof kale inay soo korsatay wuxuu u sheegay inuu wadanba ka lahayn la kulanka qofkaas maadaama la soo dhaafo wixii hore Kim wuxuu ku dajiyay goobtii uu degnaa Mark kaasoo habeenkaas ka dhacay hoteelka jacayl Mark wuxuu la kulmay sariir gariirayso markii uu horeysay laakiin waxaa dareenkiisa soo jiitay sanduuq hadiyad ah waxay ka timid Kim taasoo uu telefoon gudaha ugu jiro markuu hubiyay wuxuu ka helay ciwaanka hooyadiisa ee dhashay meel kale Kim wuxuu soo aaday milyaneer lagu magacaabayo wuxuuna weydiistay inuu kafaalo qaado Mark markii hore kor baa loo laalaadiyay asiga sababtoo ay fasax la'aan ayuu walaalyow la hadlay laakiin asigoo eegay muuqaalka Mark gangisterkii wuxuu aqbalay inuu kafaalo qaado Mark shirkiisu Mark waa inuu guuleystaa kulanka koowaad lagana badiyaa kulanka labaad waa amar uu bixiyo subaxdii xigta wuxuu raacay qariidadii telefoonka si uu u diga ciwaankii kahor intuusan garaacin albaabka laba caruur ayaa ka soo baxday dhismaha guriga waxayna ka dhigantay inay rumaysan yihiin inuu yahay bahal sidaas darteed si looga fogaado cabsida caruurta hooyadood waxay u sheegeen inay arkeen in la yaab leh oo hortaagan guriga hortiisa hooskii ayaa daaqada soo istaagay waxayna daawanayeen Mark oo sii socdo Sumi waxay leedahay dukaan wax lagu iibiyo aan naf fiican u shaqeynin waxay lacag badan ku leedahay burcadkiiyo maalintii shaqada waxay dareentay Mark iyo Kim oo sii socday kalaab ku yaalo suuqa Kim wuxuu keenay Mark si uu u baro asiga uuna kafaalo qaado uu soo bandhigay xirfadiisa halka kale waxaana la baray wiil maalqabeen ah oo qariban oo lagu magacaabo John Young waa lamaanaha yow iyo kan lacagta ugu badan ku bixiya qamaarka Mark wuxuu cadeeyay xirfadiisa nin xoog badan oo ka tirsan ciidanka badda guush awgeed asiga iyo Kim waxaa la siiyay qor raaxo leh oo ku yaal hotel 5 star Kim wuxuu helay qoraal ka yimaaday yow oo sheegaya inuu ku guuleysto kulanka ugu horeeyay ee bari laakiin lumiye kan labaad wuxuu ka baqayaa Mark inuusan ogolaanin shuruudahaasi waxay u bixeen casho Kim wuxuu ku soo qaaday mowduuca guuldarada ciyaarta labaad la yaab ayay ku noqotay Kim markuu Mark aqbalay inuu sameeyo buuq la'aan arintaasi subaxdii xigtay waxa aragnaa Sumi oo caruurteeda u diyaarinaysa dugsiga Chung Hyun waa kii ugu weynaa oo ka walacsan inuu ninkii weynaa uu yimaado guriga mar kale kadib markii caruurta dugsiga aadeen waxay soo saartay sawiro hore oo waxay heshay Mark oo yar iyo hooyadiisa dibadda markay u soo baxeen caruurta dugsiga aaday waxay mar kale arkeen asagii kii u yareed John Hyun waxay ku faraxsan tahay laakiin John Hyun wuxuu ku hanjabay inuu wici doono booliiska hadduu mar kale ku arko Mark gurigiisa agtiisa muuqaalka soo socda waxaa nala soo bandhigaya ku guuleysiga lagdinta gacanta koowaad ninkii Kuuriyaanka ah oo lagu magacaabo Komb iyo wuxuu u yeeray kalaabka fiidnimadiisa uu qiimeeyay xirfadda Mark ma doonayo inuu sharadka lacag ee sameeyo
si taxadir la'aan ah ilaa uu xirfadiisa u sii iftiinka cagaaran ee Mark oo waa la aamini karaa ayuu yiri fiidkii qof dadka oo dhan waxay iskugu imaadeen kalaabkii. Mark wuxuu kasoo horjeestay ninkii aadka u dheeraa ciyaartii ugu horeysay wuxuu ku guuleystay dadaal dheer kadib. Sumi sidoo kale waxay ku jirtaa daawadayaasha ciyaarta daawanaya Mark tii lagu guda jiray xilligii nasashada wuxuu isku dayay si aan aboonin inuu u taabto Sumi isigoo cadeynaya inuu iyada leeyahay lacagta ay ku leedahay awgeeda. Mark ayaa arkay tani kuma faraxsan arrintaani markay ciyaartii labaad bilaabatay si badheedha ay ugu badiyay si uu tusayo markii oo isku dayay inuu la sheego lahaanshihiisa geesba ayuu u riixay Kim wuu wareeray wuxuu isku dayay inuu ka farxiyo madaxda iyo Mark si isku mar ah wuxuu ogaaday Sumi inay tahay sabab Mark uu qiyaamay asigoo aad u cadhaysan ayuu u tagay si uu weydiiyay xadiidka ay la leedahay Mark. Yob ayaa yimid si uu u weeraro Kim. Mark ayaa soo dhaxgalay taasoo keentay in dagaal dhex maro dhammaan dadkii Yob iyo asiga oo kaliya ah. Intuu dagaalka socday Sumi waxay weydiisatay Yob inuu joojiyo ragiisa laakiin dhulka ayaa lagu tuuray. Buuqii wuu joogtay markii booliskii ka xireen Mark iyo Kim wuxuu u baahan yihiin aqoonsiga Mark si loogu ogolaado in la sii daayo balse wuxuu ka waayay boorsadiisa iyo baasaboorkii dagaalkii ka hor. Booliska iyo Mark ayaa iska soo horjeestay midba midka kale oo ciyaarta ayuu ku cadeeyay inuu yahay dhab ahaantii lagdanka ciyaarta gacanta. Wali ninkii booliska wuu diiday in la sii daayo asigoo aan la haysan aqoonsigiisii. Isla markii Sumi ayaa la timid saldhigga booliska iyada iyo caruurteedii. Baasaboorka ay waxay haysaa sawirka asiga iyo hooyadii oo cadeynaysa inuu haysto aqoonsigii. Kadib waxaa la ogaaday Sumi inay tahay Mark walaashiisii. Hooyadood ayaa dhimatay sanado ka hor. Mark wuxuu ku xumaaday inuu maqlo warkaani mana garanayo sida uu la socodsiiyo. Qoyskii waxay u martiqaadeen Mark iyo Kim inay gurigooda joogaan dhowr maalmood. Caruurtii way jecel yihiin isaga sababtoo ah shakhsiyadiisa gaarka darteeda. Gabadhii yareed ee John Hay waxay jeceshahay inay gacantiisa ku ciyaarto Mark halka John Hook oo bilaabay inuu la hadlo asiga marar badan. Guriga dibadiisa koox dhalinyaro oo sigaar ku cabaysa ayagoo diideen inay ka tagaan taa markay Sumi ka codsatay laakiin markuu Mark ay arkeen way raaligeliyeen isla markiina way ka carareen. Maalintii xigtay waxay yimaadeen in lacag aruuriyaan Sumi oo u hanjabaan isla markii Mark wuxuu ku dhow yahay inuu ka tago alaabtiisa ma rabo inuu culeys ku noqdo qoyskii. wuxuu u diray sharkii amaahdii ahaa laakiin tuugada ayaa ka dhadhacsiin in uu la joogo qoyskii si uu ilaaliyo. maalmaha soo socda waxay wada leeyihiin madadaalo badan. waxay aadeen meelaha cuntada lagu kariyo waxay wada cuneen cunto si wada jir ah ay wada ciyaareen. waxay u noolaadeen sida qoys isku faraxsan oo kale. ilaa hadda Sumi waxaa ku adag inay ganacsiga iyo labada caruur ay kaligeed maamusho. gurigeeda waxaa ka buux dhar aan habaysnayn oo ganacsigeeda ka soo baxay. maalmaha kamid ayay guriga ku soo noqotay si ay taasi u aragto. dhammaan waa la nadiifiyay. Mark sidoo kale wuxuu daryeelayaa caruurtii si ay diiradda u saarto shaqada. wuxuu ku jiraa dhibaato dhanka lacag yarida ah. markuu uu arkay Mark uu caruurta la jiro wuxuu helay fikrad inuu u waco saaxiibkiisa oo kamid ah shirkadda baahinta. wuxuu rabay inuu diiwaan geliyo nolosha Mark si uu u kasbado dareenka dad oo ugu helo xoogaa lacag ah. Mark wuu ka shakiyay laakiin wuu aqbalay inuu sameeyo arrintaasi. muuqaalka soo socda waxaa aragnaa Mark iyo qoyskii oo banaanka u baxeen. waxay la kulmeen horyaalka lagdinta ee Kooriyada. Komba ayaa la tartamay tartamayaashii munaasabad sanfala ah darteeda. Mark wuu la tartamay koob wuuna ka guuleystay ciyaartii isagoo qof walba la yaabay. dhowr toddobaad kadib sheeko ku saabsan Mark waayihiisa dhibaatada iyo soo koristiisii iyo halgantii lagdanta uu gacanta uu ka soo maray ayaa laga sii daayay TV-ga. markii arrinta laga soo daayay wuxuu ka helay lacag aad u fara badan. caruurtii waxay bilaabeen inay sii fiiriyaan adeer. maalmaha kamid ayagoo u socday dugsiga waxay maqleen naag afxun oo Mark wax ka sheegay sida uu argoosato. John Hay waxay ku dhawaaqday in adeerkeedii uu horyaal yahay una ballan qaaday inuu guuleysto doono horyaalka qaranka. muuqaalka soo socda waxaana la barayaa Kim aabiis oo daa laakiin uu ka shaqeeyay si uu nolol u helo. sababta kaliya oo Kim ugu adkaysanay inuu lacag badan sameeyo waa inuu doonayay inuu siiyo aabiis nolosha ugu fiican taasoo ah meel uusan u baahnayn inuu mar dambe ka shaqeeyo. kusoo laabashada guriga John Hook wuxuu wacay Mark wuxuuna tusay iimaylada hooyadiisa wax ku qori jirtay maalin walba. Mark wuxuu ogaaday arrintii wuuna ku qoomameeyay noloshiisii inay hooyadiisa ay soo korsanin asiga. waxay dhowr iimayl ku qori jirtay ciwaan aan tiisa ahayn. waxay u sheegtay si ay noloshiisu adkeed markii iyada la joogtay way awoodi weysay inay quudiso. waxay rabtay inay nolol wanaagsan asiga u helo xitaa iyada markay dhimanayso waxay rabtay in ay la kulanto ay weydiisato inuu iska cafiyo. Mark wuxuu kale u ogaaday in ay Sumi aan ahayn walaashiisii ee hooyada ka soo qaaday jidka. waxay ahayd ilmo yar kadib markii ay waalidkeeda dhinteen. wuxuu arkay warkii uu ka naxay Mark asigoo ka carooday Sumi waayo weligiisa run ma u sheegan iyada. muuqaalka soo socda qoyska wuxuu u kaxeeyay qabriga hooyadii ee Mark. intuu safarka uu ku jiro Sumi
wuxuu ugu yeeray inay beenley tahay iyada. Mark wuxuu go'aansaday inuu ku laabto America asigoo ugu tagay wanaag ayaga. Kim wuxuu isku dayay inuu joojiyo asiga maadaama uusan sidaas yeelin weli muusan ka qayb galin tartankii isbuuci oo ku jira. Si kastaba ahaatee Mark wuu nii jabsan sababtoo ah saaxiibkiis wuxuu isticmaalay si uu lacag ugu gato asiga. Muuqaalka soo socda waxaa aragnaa ninkii championka hore ah ku guuleystay kombi oo ku tababaranayo gangsterka wuxuu kala shaqeeyaa nin aad u weyn oo lagu magacaabo Kane. wuxuu yahay mid naxariis daran oo ku caanbaxay inuu jabiyo gacan kasta oo ka hor imaato. dhowr san ka hor waa la xiray wuxuu isticmaali jiray kaniiniyaal xad-dhaaf ah si uu u helo awood ciyaarta soo socoto. wuxuu sidoo kale ku dhaqmaa si aan u fiicnin isagoo diyaar u ah inuu ku soo laabto ciyaarta maalintii tartankii ugu dambeysay. markay imaado caruurta kaligood ay guriga joogaan markay ogaadeen inuu iloobay Mark inay siiyaan biladiisii ayagoo marmarsay ka dhiganaya arrintaas. waxay fuuleen bas ayagoo masaafo dheer u soo socon si u daawadaan ciyaarta latinta. muddo kadib Sumi waxaa soo wacay saaxiibkeedii oo ku sugan goobta oo ku qasabtay inay caruurtay u soo cararto oo kaxayso iyada. tartankii wuu bilaawday. Kane, Mark iyo Comb waxaa lagu hayaa 3 kooxood oo kala duwan. ayaga ayaa maamulaya kulamada kooxaha ay u soo baxeen semifinalka. Kane ayaa si naxariis la'aan ah wax u dhimeen qaar badan oo kamid ah kuwa ka soo horjeedo. wuxuu aaday finaalkii maalgeliyaha maalqabeenka Chen iyo dadkii waxay sharad dhigteen lacagtoodii Kane. markay arkeen sida wanaagsan uu Mark u shaqeynayo waxay ka baqayaan inay lumiyaan lacagtoodii oo dhan. sidaas darteeda Chen wuxuu amray Yow inuu sameeyo wax kasta oo awood ah inuu hubiyo ciyaartu inay ku guuleystaan. Yow isna wuxuu aaday Kim labadoodii wuxuu siiyay $200,000 sida uu ugu talagalay inuu ku qanciyo Mark in laga badiyo ciyaarta semifinalka. Comb iyo Kim way aqbaleen lacagtii oo waxay u tageen inay saaxiibkooda Mark arrinta u sheegaan laakiin Mark wuu ka diiday inuu xiro heshiiskaasi. lacagta waxay bixin doontaa dhammaan deymaha iyo waxay oofi doontaa wax kasta oo ay rabaan noloshooda. weli ma ah mid u ballan qaadi karo arrintaas inuu sameeyo John Hain. sidaas darteed waxay la dagaalameen Combo. dhamaadka wuxuu ku guuleystay ciyaartii dhamaadka ahayd intii lagu guri jiray nasashadii u dhaxaysay ciyaaraha. iyo wuxuu qabsaday Kim si uu u wado inuu soo garaaco asiga. si kastaba ahaatee tuugadii waxaa joojiyay Mark. gangsterka wuxuu ku reex dhulkii oo wuxuu badbaadiyay saaxiibkiisii. Kim wuxuu iloobay inuu lacag weydiisto inuu ku guuleysto qiimo kastaba. ciyaarta ayaa bilaa qof walba neefta ayuu isku hayaa wuxuu daawanayaa ciyaartii. Kim wuxuu ciyaaray ciyaarta si qalad ah wuxuu si ula kaca gacanta uga bixiyay Mark. wuxuu sidoo kale gacanta suulka ugu jiiday Mark asigoo raba inuu ka jabiyo suulka si uu ciyaarin ciyaarta. laakiin markaas indhihii Mark waxay arkeen caruurtii oo ka balan inuu guuleysan doono asiga ayagoo xiisaa u soo cusbaaneen si uu u cadeeyo qiimihiisii. Mark wuxuu u riixay gacantii Kane isla markiina wuu ka adkaaday. muuqaalka u dambeeyay Mark wuxuu sheegay TV hortiis in hooyadiis uu jecel yahay laakiin ma cesho karo oohinta isagoo u malayn jiray inay silcin jirtay waqti badan. filimku wuxuu ku dhamaaday isagoo qof walba u dabaaldegaya guusha. fadlan janaalka subscribe dheh si aad u hesho muuqaalo badan oo sidaan oo kale ah. furo gambaleelka like na noo saar si aad u caawiso janaalka. waa ku mahadsantahay daawashadaada.